kulan wacan dhagaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wadaagga oo ay idiin soo diyaariso dallada Sooma oo ah dallada ay ku midaysan yihiin idaacadaha Soomaaliya ka howlgala marka laga reebo kuwa ku yaala deegaanada Somaliland. Barnaamijkan wuxuu idiin soo gudbinayaa warbixino bulsho iyo arrimo gaar ah oo ka jira magaaladaada iyo meel ka baxsanba. Anigoo Axmed Tifo ayaa barnaamijkan soo jeedinaya. maantana waxaan ku eegi doonaa dood ku saabsan kala saaridda hay-adaha fulinta iyo sharci dejinta sida ay horseed ugu noqon karto la xisaabtanka xukuumadda dhexe. Nolosha magaalada Feerfeer oo dib u soo laabatay kadib heshiis laga gaaray colaad soo jirtay muddo ka badan rubuc qarni, iyo warbixin aan idinkaga hayno dad ku dhow 2,000 oo qoys oo xaalad masquul yari ah ku haysata xerooyinka dadka soo barakacay ee ku yaala duleedka magaalada Baydhabo. aan ku bilownay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la filayaa inuu soo magacaabo dhowaan ra'iisul wasaare si uu ula fududeeyo shaqooyinka dawliga ah ee qabashadeedu ay hortaallo maamulkiisa. Intaas kadib ra'iisul wasaaraha la magacaabo ayaa soo dhisi doona golo wasiiro oo isaga la shaqaysa. Waxaa la arkaa inta badan in golahaas wasiirada ay ka soo muuqdaan xubno ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka, taas oo ay dad badan u arkaan in ay hoos u dhigtay la xisaabtan dhab ah in ay la kulmaan xukuumadihii dalka soo maray. Kala saaridda hay-adaha fulinta iyo sharci dejinta waxaa la aaminsan yahay in ay soo dedejin karto in xukuumadda ay qabato adeegii looga baahnaa si dhab ah, iyada oo ka baqaysa la xisaabtan dhinaca baarlamaanka uga yimaada. Waxa ay horseed u noqon kartaa maamul wanaagga sida la aaminsan yahay. Haddaba dood ku saabsan arrintan waxaa igala qaybgelaya Maxamed Abuukar iyo Cabdixakiin Axmed oo labaduba ah aqoon-yahano ku nool Muqdisho. waa idinku soo dhaweynayaa labadiinaba Maxamed Abuukar iyo Cabdixakiin Axmed. waa ku faraxsanahay inaad doodan qayb aad ka noqotaan. Cabdixakiin ku hormaraya. Cabdixakiin, in la kala saaro hay-adaha fulinta iyo sharci dejinta horseed ma u noqon kartaa la xisaabtanka xukuumadda dhexe ee la filayo in la soo dhiso dhowaan? Axmed Tifo walaal aad horta marka hore ugu mahadsantaa. way noqon kartaa wayna maaragtay ku fiican tahay in systemka la qaato si isla xisaabtanku u fududaado. waayahay Maxamed Abuukar, in arrintan lagu guuleysto dad badan waxay saadaalinayaan inaysan ahayn mid fudud in xildhibaanadii golaha shacabka iyo xukuumadda la kala saaro. ma kula tahay in maamulka madaxweyne Xasan Sheekh uu guuleysan karo? aad iyo aad u mahadsan tahay Axmed Tifo. horta waxaa muhiimsan nidaamka siyaasiga ee wadankeena waxa waaye mid mixed waa. adduunyadu waxaa la isticmaalaa nidaamad kala duwan. nidaam presidential system ah oo madaxweynuhu wasiiradiisa banaanka ka keensan kara, macnaha baarlamaankuna shaqadiisa gaar ah iska qabsan karo, halka parliamentarianku uu yahay in wasiiradu ka yimaadaan baarlamaanka ka yimaadaan. wadankeena waxaa la marka waa isku dhex jiriya. marka sidaa daraadeed waxaa madaxweynaha ugu guuleysan karaa sidii kara arrintan in constitutionka lagu cadeeyo ninka xildhibaanku uusan noqon karin wasiir. marka si isla xisaabtan dhab loo helo waxaan qabaa in constitutionka lagu cadeeyo in qofka xildhibaan noqonayo uu wasiir noqdo. taas marka ma noqon karto dowladda maanta taagan. waxay u baahnaa doontaa in constitutionkii lagu sameeyo waqti badan la geliyo, wax ka bedel lagu sameeyo. taas waxayna qaadana marka process. marka waxaan dhihi karaa hadda dowladda waqtigan taagan aniga ma ku guuleysan karto. Cabdixakiin, waxaa la sheegaa in xukuumadihii dalka isaga kala dambeeyay ay aad ugu dadaalayeen in xubno ka tirsan golaha shacabka ay wasiirro u magacaabaan si ay isaga ilaaliyaan haddii la xisaabtan dhab ay xukuumadda kala kulanto baarlamaanka ay codka kalsoonida kala laaban karto. marka arrintan ma is leedahay si loo ilaaliyo danaha xukuumadda, ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhuba waxa ay doonayaan in marnaba aysan kala saarin labada hay'adood? nimanka xildhibaanadu xaq bay u leeyihiin. dastuurkii 60kii qodobkiisa 8aad sheegayo maaragtay in xubin xildhibaan ah ee waxa kaliya ay noqon karta ay tahay wasiir. marka macnaha xuquuqdii marka oo dastuurka siinayo maaragtay kama hor istaagina, laakiin waxaa la rabnaa mentalitigii iyo mataqaanaa si qaab maaragtay wanaag ah dowlad wanaag la rabaa iyo mataqaanaa inay maaragtay xilkooda ku gutaan isla xisaabtankana u sameeyaan. maxamedow, haddii tusaale ahaan ay dhacdo arrintan in la kala saaro labada hay-adood,
ma dhici kartaa in la arko mas-uul isla xisaabtanka dartiis ku baxa ama xilka isaga casila? aad iyo aad waxa waaye sideeda banaan baarlamaanku waa hooyada hay-adaha dowladda waa haddii ay dhacdo in xukuumaddii laga keeno banaanka xildhibaanku wuxuu ku qasbanaaha waajibaadkiisu inuu guto si toosa macnaha halka waxyaabaha mararka qaar baarlamaanka ka dhaca waxaa ka mid ah Soomaali maanta waxay ku qabsataa boodqaybsi ku qabsataa maanta waxaa suurtagal ah wasiirkii waajibaadkiisu gudan waayo markii la yihahdo baarlamaanku ha ka keeno mooshin ama kalsooni helan noqdo in sheekadii loo bedelo qaab macnaha qabiil loo bedelo baarlamaankii baa wasiir hebel taageeraysanaya macnaha loo bedelo. waaya dhamaadkaa soo gaarnay maxaa abuukar si loo helo la xisaabtan xukuumadeed oo dhinaca baarlamaanka ka yimaada maxaa is leedahay tallaabooyin ah oo 1 iyo 2 ah oo loo baahanya? Maasan tahay waxaa muhiim ah in horta kow la maro wadooyinka sharciga oo nafarayo constitutionka in la maro horta kow muhiim ah. waxaan ku talin lahaa horena uu sheegay xildhibaanku wuxuu noqon karaa wasiir lagu bedelo qof kastoo xildhibaan ah hadduu wasiir noqdo wuxuu lumanaa xubinimada kow waa si loo helo isla xisaabtan naba macnaha inay kala madax banaanaan labada saydo. 2 nidaamka siyaasiga Soomaaliya in la caddeeyo ayuu ku imaanaa isla xisaabtan nab taasna waxay gogol xaar u noqon karo in madaxweynuhu uu qaato go'aan ah inuu hawsha dedejiyo dastuurkana dhammaystiro inta ka sukaana oo uu noqdo odayga dowladda ama ha huraadiyo xukuumadda banaanka ka keeno saasaan dhilahay macnaha. Cabdixakiin haye maxaa raacsanaysaa? wallaahi ninka walaalkii maxamed waxaa uu aad ugu raacsanaha arrintaas laakiin arrintaa waxay ku imaanaysaa qalbi wanaag iyo geesinimo marka maaragtay marka si daacadnimo uga hadalno Soomaaliya ka soo bilaabo maaragtay arta ka soo bilaabo progression sameynaysa oo maalinta ka dambaysa waxba ku darsamayo marka qoladii taariikhda sameeyleeda uu soo oo maaragtay wali la sugayaa mooyee ismalihi ma taqaanaa arrintan saanaysi ahaanaysa ismalihi marka waa ku maaragtay dhiirigelinaya inay ma taqaanaa geesinimadaas qaataan marka aad maaragtay arrinta maaragtay ugu boorinaya aad aan u mahadsantahay. waayahay aad u mahadsantahayn Cabdixakiin Axmed Maxamed iyo Maxamed Abuukar oo barnaamijka wadaaga qaybtiisa dooda igala qaybgalay waa ku mahadsantiin waqtigiina. feerfeer oo ah magaalo ku taala xadka kala bara labada dal ee Soomaaliya iyo Itoobiya ayay nolosha caadiga ah dib u helayaan dadka deegaanka kadib markii ay ka qaxeen colaado soo jirtay muddo ka badan rubuc qarni oo la xiriirtay qabaa'ilka. waxaa lagu guuleystay in dib ay u soo noqdaan dadkii isaga cararay dagaalada si ay naftooda ula baxsadaan iyadoo maamulada Hiiraan iyo dowlad deegaanka ay aad u kormeerayaan dhaqangalka heshiis laga gaaray dagaalka qabaa'ilka. magaaladan oo ah dhul ahaan mid siman waxaa xilligan ka socda dib u dhiska guryihii iyo xarumihii danta guud ee ku burburay dagaalada iyadoo goobihii ganacsiga caafimaadka iyo waxbarashadaba dib loo furay. Shukri Baryare oo feerfeer safar shaqo ku tagtay ayaa ku eegaysa warbixintan. Farxaan Xasan waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ku dhalatay degmada Feerfeer Soomaaliya xilligii ay socdeen dagaaladii u dhaxeeyay qabaa'ilka wadadaga deegaankan oo aan dadkiisu helin nabadda muddo ka badan 25 sanadood halkaas oo ay ku dhinteen boqolaal qof oo ay ku jiraan dad shacab ah. 2003 Farxaan oo 9 jir ah waxa uu ku waayay walaalihiis oo kala ahaa Caasho oo 22 sano jir ahayd iyo Axmed oo 8 jir ahaa. arrintaas oo markii dambe sababtay in isaga iyo qoyskiisa ay u soo barakacaan magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan oo abni ahaan ka fiicneed deegaanka Feerfeer iyaga oo tan iyo xilligaas wali degan. dhimashada walaalaha la dhashay Farxaan ayaa timid kadib markii iyaga oo gurigooda jooga ay xabado wiifta ah kula dhaceen barxadda gurigooda waxaana ay ka mid noqdeen maatada aan waxba galabsan ee dhibaatadu ka soo gaartay dagaaladii sukeeyay ee ka dhici jiray Feerfeer Soomaaliya. Farxaan oo waxbarashadiisa aasaasiga ah ka bilowday Beledweyne ayaa kaga haray fasalka 7aad ee dugsiga dhexe maadaama ay qoyskiisu awoodi waayeen inay ka bixiyaan lacagaha lagu dhigto iskuulka isagoo hadda ku shaqaysta mooto bajaaj oo uu ku maareeyo nolosha waalidkiisa iyo 5 caruur ah oo isaga ka yar oo 2 ka mid ah ay hadda waxbarashada aadaan. waxaan ka mid ahaa dadkii deganaa Feerfeer muddooyin ka hor
meeshii waxaa ka qarxay dagaal qabiil oo in muddo ah socday, dagaalla soo laalaabtay. waxaan ku jiraa dadkii runtii meesha ka soo qaxay, meesha dad badanaa ku waxyeeloobay. anna magaaladan soo galay, waxaan noqday hadda qof xoogsato oo qof bajaajla noqday, magaaladan iska xoogsadaa. dad aan asxaab iyo walaalana aan meesha ku weynay. 28 Janaayo ee sanadkii la soo dhaafay 2021 ayaa maamulka gobolka Hiiraan waxa uu magacaabay maamul ay yeelato magaalada Feerfeer Soomaaliya si loo ilaaliyo dhaqangalka heshiis la dhex dhigay beelihii ku dagaalamayay iyo in ay horumarkii nolosha ee ka jiray deegaanka mar kale la helo. Jeelle Faarax iyo waa gudoomiyaha degmada Feerfeer Soomaaliya waxa uu Soomo u sheegay in degmada ay hadda dib ugu laabanayaan dadkii ka cararay maadaama xabad joojinta ay sameeyeen odayaasha dhaqanka. maamulka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo kan gobolka Hiiraan ay dhaqangal noqotay, isla markaana ay ku sugan yihiin ciidamo loogu talagalay inay ilaaliyaan xasiloonida. waxa uu xusay in dadka Feerfeer ay baahi weyn u qabeen nabadda, ka maamul ahaana ay qabtaan mar kasta kulamo bulshada lagu fahamsiinayo muhiimadda nabadda iyo isdhexgalka bulshada. wacyiga ay dadka ka qabaan wada deganaanshaha ay si wanaagsan u fahmeen. Jeelle Faarax ayaa tilmaamay in hadda degmada ay ka socdaan horumaro dhinacyada ganacsiga, waxbarashada iyo in dib loo dhisay xarumihii dawliga ahaa ee ku burburay dagaalada iyo dhismaha guryaha dadka rayidka ah, taas oo fursad shaqo abuur ah u noqotay dadka yaqaana dhismaha guryaha. maamulka gobolka iyo maamulka degmada iyo odayaasha deegaankaas ka kaashaday iyo labada gees odayaasha. markii hadda dhibaatooyinku degmaday ka jireen intooda badan, degmadu qabiilaad badanaa degan, ilaa webiga ilaa iyo buuraha ilaa meel walba qabiilaad fara badanaa degan oo Soomaaliya ee degmadu ka dhaxaysa. marka dadkaas oo dhan ayaa dagaalku inteeda badan Soomaali ahaan loo hadlay. kullee nabada aan wanaagsan in nabad la helo oo ummaddu ay nabadaas qaadato ayaa wanaagsan, oo qabiil wax la isku dilaa wax macna ma yeelanayo. Cabdifataax Aadan waxa uu ka mid ahaa dadka bartamaha Feerfeer ku lahaa goob farmashi ah inta aysan dhicin dagaalada, waxaana uu sheegay in marba uu marxalad ku shaqaynayay intii uusan ka cararin degmada, oo ay dhacaysay in marna uu furo shaqadiisa marna uu xiro, taas oo keentay in uu hoos u dhaco dhaqaalaha uu heli jiray. waxaana ku dhashay go'aan ah in magaalada uu ka baxo. sidoo kale waxa uu xusay in khasaare maaliyadeed u dhaxeeya 4,000 ilaa 5,000 oo dollar in uu ku waayay intii ay dagaalada socdeen, kuwaasi oo ah hantidii tilay farmashigiisa oo ahaa dawooyin iyo qalab caafimaad oo uusan awoodin in uu horay u sii qaato maadaama ay dagaaladii qaraaraadeen, isna xitaa uu waayay fursad uu kula soo baxo. Cabdifataax oo ah aabba 4 carruur ah ay u joogto ayaa u qaxay magaalada Beledweyne, halkaas oo ay reerkiisa nolol cusub ka bilaabeen 13 sano ka hor, balse uu dib deegaankiisa ugu soo laabtay sanad ka hor maadaama uu nabad noqday. waxa uu ku dhiiraday inuu dib farmasho cusub uga furto degmada Feerfeer oo hadda mar kale uu lacag geliyo, waxaana uu rajo ka qabaa in uu ganacsigiisa ballaarto oo uu gaaro ilaa iyo heer uu degmada dawadeeda oo dhan isaga uu keeno. laba jeer ayuu ganacsigayga xirmaanay, wuxuuna u xirmay sababo awgeed, macnaha dagaallo iyo dhibaato badan oo meeshii ka dhacday deegaankii aniga aan joognay, ganacsiga oo iga furnay. wallaahi inkastoo hadda nabadii ay haddan ay nabad noo noqotay, haddana ay nabadgelyo ay ka jirto, macnaha waxaan jeclahay macnaha ganacsiga yar oo hadda aan haysto inaan meesha ku sii bulaaliyo. Shukri Bareere Maxamuud, barnaamijka Wadaagga Sooma, Beledweyne. weli waxaad dhageysanaysaan barnaamijka Wadaagga Sooma oo Muqdisho idinkaga imaanaya. ku dhawaad 2,000 oo qoys oo isugu jira barakacyaal cusub iyo kuwo hore u deganaa xerooyin ku yaala duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa xilligan wajahaya dhibaatooyin musqulo yari ah dhowrkii sano ee la soo dhaafay. walaaca ugu xoogan ay dadku qabaan ayaa ah in carruurta yaryar ay ku saxaroodaan barxadda xerada ay isgaargaarto, markaas oo aad looga digayo inay ka dhalan karto dhibaatooyin caafimaad darro, iyaga oo dalbanaya in si degdeg ah looga caawiyo sidii ay ku heli lahaayeen musqulo ku filan. waxaa jira in barakacyaal cusub ay soo gaarayaan marba marka ka dambeysa, oo xaaladda dadkan ay ku sugan yihiin sii murjinaysa. Saciid Sabriye oo Baydhabo ku sugan ayaa nooga soo diray warbixintan. dad ku badan 900 qof oo ku nool heryaha barakaca ee Baasmale, Beerdhimbila, Belan, Goofirow
iyo waami oo kaala duleedka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay iyo helagan hawajahdi musqul yare nuurta maalan waa hooyada 15 onog weyba iyo 140 qof iyo deganyin xerada baasmale oo hadeertii bilawkii bila janaayo ee sanadkan markii ku barakacdi deegaanshe oo abaarto ku jirta saameyn ku dhatay dadka iyo dunyada weyba ya tilmaantay in haddii heli nolol aasaasiga balse xaaladda anka daran ee ka haysata xerada iyo eta musqulaan iyo biyo yari weyba kale oo ay sheegtay in ciyaalka banaanka xerada iyo ka saxroodayeen meel dadka weyn hal musqul iyo isku sugaayeen nuurta ya tilmaantay in dhibaato badan ya ka haysata xerada oo markii isdeerta saxarada ciyaalka roobkana ka kor qobada iyo seeneen dulqaad korna urku ku koyo oo xitaa ya ka obsa qabta in caafimaad xumo ku dhalata weyba ya xustay in yoon baahanyin sidan ka dhaqsiyaha badan landhisa musqulo iyo galan maadaama dadka kaamka kuwada noolyiin eedan badanyin si aan ka filanayn hal musqul oo weliba wadaagan lama kaam ilaahay ama halee dhibkiyan intaan koyni adda ku horma ku banna adda fadaani musqul banaanku wala fadheedaha ay biimile beedmile biyo wal gadaa wala leey wal isku hor koy dig i doorahan wal isfiiriyahay musqul dhibshahe taas waliignaga hayma musquleeda dhibanka qab daleeshun ba fadhina lan kheer baadi hay mushka madag la galay inta fadheeday dhib intii qab moogte nguriso heetay herada barakaca ee goofyarow wayba ka noola dad ku badan 250 qof hanaas oo badan waayeel ciyaal iyo hooyooyin manajarta wal musqule oo xeradaasi hilagan kiyaala sadiya sooma aan sheegtay batuulo aadan diyad wayba ya sheegtay in muddo lisane iyo deganta kaamkan wal musqulena la neendhisna iyadoo hadeerayan marba marku ku dambayta barkacayaal cusub oo hadda qiyaastay in ku badan 300 oo qof batuulo iyo sooma aan sheegtay in obsiyadan badan iyo ku qaban in cuduro iyo ku dilaacan xerada maadaama nadaafadumo ku dhalatay musqulaanta hilagan kaamka ku jirta musqul wala sababa maylar nadaafad darro ku kooyasa shibinbiyoodka dareera maylar hayso shibinbiyoodka dareera musqulnanay aawi nadaafada wal kullun ada maylar haynani galab gala shiban in badiya ka jaraan dadkuna taanay kordagan maylar hay afartii ko goosu maylar hayso musqulama haysana may buaha maylar hay banaanka leebilka saaroode ma Dr. Cabdullaahi Cismaan Naaji oo doktorka cudurada guud iyo ciyaalka oo ka howlgala xarunta caafimaadka Bayhaw Hospital yawayba u sheegay in muhiimata in musqulo nadiif iyo helan dadka barakacay taas oo yaray korta khataraha caafimaad ee ka dhalada kora nadaafadhumada wayba u sheegay in heryaha dadka ka badanyin isla markaasina laga maarmaan eta in la ku taxadara cudurada faafaw ee ku dhalada kora saxarada oo sababan musqulaanta oo dadka barakacay ka qasabaasa in dhulkiyo ka saxroodan dhakhtar Naaji ya soomaan korami cudurada ku dhalada kora heryaha haddii lan helna musqul nadiif oo dadkaas iyo isticmaalo koran nadaafad darrada ay keenaysa musqulaha waxaa ka mid ah in cudurada oo sida acute watery diarrhea lahay oo hadda saan dareemeyn oo baydhabo waxaa waaye cudurro badana hadda ka dilaacay cuduradaas faraha badanna marka waxaa waaye waxaa keenay biyaha wasaqaysan iyo meelaha wasaqda ay degta sida musqulaha oo kale bulshada marka waxaan ku dhiirigelinaynaa in nadaafada guud ay ku dadaalaan musqulahan layska hagaajiye ciyaalkii yaryarna meelaha ay ku saxroonayaan saxrada in meeshii loogu tirigala la dhigo nadaafada qof walba ayay saaran tahay mas-uulka ah cudurada marka oo ay keenaan waxaa ka mid ah shubanbiyoodka hadduu qof ku dhac waxaa laga yaabaa 24 saac gudahooda qofka daryaal hadduu heli waayo inuu cudurkaas u dhinto tan kale waxaa jira waxyaabo looga hortaga nadaafad xumada waxaa ka mid ah koloriinka xitaa haddii koloriin aad heli karin dadku waxay isticmaali karaan musqulaha waxay ku shubi karaan dambas mise oori sida taksiga iyo waxaas ay u dhintaan intaas ayaan maantana kusoo gabagabeynayaa barnaamijka wadaagga sooma waxaanse dhagaystayaal idinkaga tegayaa su-aasha ah maxay tahay muhiimadda ay leedahay in qof xildhibaan ah aan lagu darin golaha wasiirada ee lasoo dhisi doono nala wadaag aragtidaada adigoo la soo xidhiidhaya taleefannada idaacaddan mahadsanidin